Assalamualaikum calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhammaantiin dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii xogogaal la xubnahaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah fagaaraha beerta xorriyadda ee magaalada Hargeysa waxaa maalintii shalay lagu qabtay barnaamij aad u ballaaran oo ay ka qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada reer Hargeysa kaas oo si weyn loogu taageerayay qadiyadda madaxbannaanida Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waliba aqoonsi raadinta Soomaaliland oo dhawaan golaha aqalka hoose ee dalka Ingiriisku ay dood xasaasi ah ay ka yeesheen mas'uuliyiin kala duwan oo ka tirsan golayaasha kala duwan ee qaranka oo horkacayo madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaana kala qayb galay dadweynaha banaanbaxaasi sidoo kale dhageystayaal waxaad ku maqli doontaan qaybtii saddexaad ee waxqabadka xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ee sanadkii tagay ee 2021 gabagabada barnaamijkeena xogogaal waxaad ku maqli doontaan aynu soo qaadanay xubinta koowaad ee barnaamijkeena xogogaal dhageystayaal waxaynu ku soo qaadan doonaa magaalada Hargeysa gaar ahaan fagaaraha beerta xorriyadda waxaa maalintii shalay lagu qabtay barnaamij aad u ballaaran oo ay ka qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada reer Hargeysa kaas oo si weyn ay ugu taageerayeen doodii dhawaan aqalka hoose ee baarlamaanka dalka Ingiriisku ay ka yeesheen qadiyadda madaxbannaanida Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo inay Soomaaliland ay xaq u leedahay inay dunida aqoonsi buuxa ay ka hesho mas'uuliyiinka kala socday golayaasha qaranka ayaa kala qayb galay bulshada banaanbaxaasi waxaana horkacayay mas'uuliyiintaasi madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici ugu horeyna halkaasi waxaa ka hadlay bulshadana ugu baaqay inay tahay maalin midnimo meerka caasimadda Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge Soomaaliya ha noolaato markay ugu horeysay Hargeysa aad bay wanaagsantiin dareenkiina iyo saarka muujiseen halkayna isugu soo baxdeen maalintan idinkaa iskale idinkaa dareenkiina ku muujinaya idinka ayaa doonaya inaad muujisaan inaad tihiin dad goba oo sharaf badan oo saaxiibada Soomaaliland la jira u mahadnaqaya maalmaha waa la kala leeyahay maanta halkan iyo madal siyaasadeed maaha shacabkaa iskale dareen shacab weeye dowlad shacab weeye waxaa rabtaan weeye idinkoo mahadnaqaya weeye walaalkay markay hadalkiisa ayaa la noqday hadalkaasi saxaafadda insha Allah dili maayo waayo maalintaa ahayn maalintaa asxaabtooda hadlayeen maaha maanta reer Hargeysa ayaa dareenkooda muujinayay
dhinaca kalena wasiirka wasaaradda warfaafinta ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Suleymaan Yuusuf Cali Koore oo isaguna halkaasi bulshada kala hadlay ayaa halkaasi ka sheegay in xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka go'an tahay sidii ay Soomaaliland ictiraaf buuxa ay ugu heli lahayd iyadoo oo ay sii kordhiyaan saaxiibada Soomaaliland ay beesha caalamka ay ku leedahay ee kala qayb galaya xukuumadda raadinta aqoonsi buuxa oo Soomaaliland dunida ka hesho aad salaamaya guud ahaan qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasta oo uu joogo maanta waxay u tahay maalin weyn waxaan aad ugu hambalyeeynaya dhammaan jaaliyadaha dibadda oo ay ugu horeyso jaaliyadda UK ama Ingiriisku waxaan oranayaa kelmad yar taariikhda Soomaaliland iyo Ingiriisku waxay soo socotay muddo 76 sanadooda taariikhda Soomaaliland iyo Ingiriisku waxay soo socotay muddo 76 sanadooda 1884 ayuu Ingiriisku yimid ciidda Soomaaliland wuxuu ka tagay oo aynu xornimada ka qaadanay 1960 labada taariikhood marka la isku daro wuxuu dalka Soomaaliland joogay 76 sano xaq baynu ugu leenahay waayo badan baynu soo wada shaqaynay waynu dagaalanay waynu saaxiibnay waraaqaynu kala qoranay dagaalkii koowaad iyo kii labaad ee adduunka loo dagaalanay xaq baynu ugu leenahay ama xaq baynu isugu leenahay inaynu caalamka isaga doodno oo wax istarno oo aynu isku yeelanno xuquuq maadaama aynu soo wada noolayn 76 sano waxaan ugu mahadnaqayaa dhammaan xildhibaanada dowladda Ingiriiska ee arrintan hormuudka ka noqday ee waday ee halkaas soo gaaray waxaan leeyahay xildhibaanada waxaan u diraynaa hambalyo ayaynu u diraynaa haddaynu nahay ummadda reer Soomaaliland farabilaawiya caddo ilaa iyo meesha la yidhaahdo qow dad badan ayaa markay Soomaaliland tilmaamayaan jughraphically labada meelood oo u kala fog waxaa la yidhaahdaa laawiya caddo ilaa iyo qow waxay 12 kiiloomitir u jirtaa magaalada Boosaaso inta u dhaxaysa Soomaaliland baa wada leh waa dad isku mid ah waa dad wada nool waa ummad taariikhi ka dhaxayso oo u baahan inay noqdaan unity meel ka soo wada jeeda waxaan aad u salaamayaa madaxweyne ku-xigeenka dhammaan golaha wasiirada maayarka gobornarka maayar ku-xigeenka hadeeyada kale iyo xildhibaanada qaranka hooyooyinka sharafta badan aqoon-yahanada jaamacadaha ardayda dhammaan bahda saxaafadda guud ahaan wixii aarilaaway askarta nabadgelyada oo ka shaqaynaysa ee bariisku ugu horeeyo waxaan leeyahay Soomaaliland ha noolaato gabagabadiina madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici oo halkaasi ka hadlay soonaaf meeray banaanbaxaasi iyo waliba munaasabadii fagaaraha beerta xorriyadda ayaa si weyn ugu mahadnaqay dareenkooda sida ay u muujiyeen bulshada ku dhaqan caasimaddu waxaynu maanta ugu mahadnaqaynaa Ilaahay in khadiyadeenii 30 sannadood sida la sheegay aynu soo marnay dhibaatooyinka badan ee lahaa halganka ee lahaa dib u dhiska ee lahaa dib u heshiisiinta ee muddada soo socday iyo dib u dhiska dowladnimo ahaa 30 sano soo socday een caalamka ka higsanayna ama ka sugaynay in khadiyadeenna iyo ictiraafkeena mar uun adduunyadu aragto waxaa maanta ilaahay mahadiyey inay maanta ka bilaantay ama lagaga dhawaaqay ama lagaga dooday dalkii weynaa ee loola jiray British UK loola jiray oo ah dalkii ay muddada dheer soo wada noolay sidaa la sheegay 76 sannadood soo wada noolay inaan lagaga dhawaaqay ama lagaga dooday ama laga qiray
Soomaaliya waxay uga tahay iyo waxay qabsatay aad iyo aad bay ilaahay u mahadnaqaynaa waxaanan bogaadinaynaa uguna mahadnaqaynaa baarlamanka ingiriiska xildhibaanada gaar ahaan dooda maantay lahaa gaar ahaan ninka hogaaminaya Mr. Gavin William waan bogaadinaynaa waan hambalyaynaynaa sida sharafta leh ee u garteen qadiyadda Somaliland iyo shacabka Somaliland waxa ka maqan ee ahaa in ictiraaf helaan oo caalamka badqaan taasi waxay noo tahay maanta innaga ay noo tahay sharaf weyn oo qiimo leh oo maanta ummaddeennii gaar ahaan qurbajooggeennii dibadda joogay ee moodaysay baasha danta yarena intayna naga dhaxaysan dhex taalla ee tartankii inuu ka qariyey wixii guuda u soconay sanadaha dambe aad moodday inuu ka qariyo ay qayqaynisay qabyaalada aynaan waxba noo tarin tartan yaroo xisbiyaa oo meel hoose ah ka qarisay bay mooddaa maanta inay soo celisay inay qurbajoogii Soomaaliland ay gartaan inay dantooda ku wada jirto in waxa guudi loo hagaago haddii waxa guudi loo hagaago tagaarka hoose way loo hagaagaysaa waxa guudi loo hagaago inay ku wada dagaalana ah oo maanta gacmaha waxaan ugu baaqaya ummadda reer Somaliland hadday shacabka gudaha jooga tahay iyo hadday ka dibadda jooga tahayba waxaan u baahanahay inaynu u midoobo sidaynu u gaari lahayn yoolkaa maanta iyo iftiinkaa baxay ee u soo harraadnayn sidaan u gaari lahayn gacmaha isku qabsanno oon ka baxno waxaan hoose inaynu isku haysanno waa hagaag barnaamijkeennii xogogaal ayaynu weli ku guda jirnaayey aynu soo qaadano xubinta labaad ee barnaamijkeenna waxaynu ku soo qaadan doonaa taxanihii waxqabadka xukuumadda ee sanadkii tegay ee 2021 qaybtii saddexaad waxaynu ku eegi doonaa oo aynu barnaamijkeennan idinku soo gudbin doono waxqabadkii xukuumadda ee dhinaca dhaqaalaha gaar ahaana dhinaca maaliyadda iyo weliba bangiga dhexe waxaa si wada jira xubintan aynoola socodsiinaya xasan xarbi iyo weliba raxme cabdilaahi meegaag waxaynu ku soo qaadan doonnaa on qodob ka hadlaya dhinaca dhaqaalaha iyadoo aynu dhegaystiye aanu ku soo qaadan doonno horumarinta maaliyadda iyo baanka dhexe haddaynu ku horreyno horumarinta maaliyadda dakhli ururinta 2021 sanadkii 2021 waxaa la soo saaray 1.5% dakhli ka badan saadaasha bilihii January ilaa September isla markaana ka sarreeya 14% dakhligii la soo saaray sanadkii ka sii horeeyay ee 2020 2021 waxaa la diiwaan galiyay 145,000 oo guri kuwaasi oo 40% ka mid ay kiroolo yihiin tallaabadaasi oo kordhinaysa dakhliga ka soo xiran jiray kirada in ka badan 100%. waxaa la diiwaan galiyay 17,000 oo cashuur bixiye oo leh sumada loo yaqaano tinka taas oo ujeedadu tahay sidii loo heli lahaa xog sugan oo sal u noqota dakhli kordhinta dawladda. waxaa la sameeyay oo la dhaqan galiyay xisaabeedka cashuurta tax assessment model oo la gaarsiiyay 17 xafiis oo ka mid ah xafiisyada waaxaha dakhliga. sanadkii 2021 waxaa kor loo qaaday u hoggaansanaanta cashuur bixinta 230% marka loo eego sanadkii ka sii horeeyay ee 2020. waxaa la sameeyay oo la dhaqan galiyay nidaamka xisaab celinta ee hanaanka online-ka ah kaasi oo kor u qaaday cashuur bixinta kalsoonida cashuur bixiyaha iyo yareynta waqtiga iyo kharashka cashuur bixintaba. waxaa la abuuray 117 xisaabood oo electronic ah kuwaasi oo laga furay baanka dhexe Somaliland si loo fududeeyo dakhli qabashada iyo badqabkiisa. waxaa si rasmi ah loo fuliyay cashuurta iibka ee adeega hodheelada cashuurtaasi oo uu jideeyay xeerka dakhliga Somaliland ee xeer number 27/2016. waxaa si rasmi ah looga shaqaysiiyay 40 mashiin kuwaasi oo maamulaya cashuurta iibka 36 hodheel oo Hargeysa ku yaala. waxaa la filayaa nidaamkani inuu kordhiyo soo xaraynta dakhliga wax ka badan 100% sanadka 2022 waa sanadkan aynu galay iyadoo nidaamka lagu maamulayo mashiinadaasi la dhaqan galiyay. waxaa la fuliyay nidaamka maamulka khataraha kastamada ee adeega fudaydinta socodka badeecada. waxaa la soo iibiyay 2 miisaan oo ah kuwa cabira gaadiidka xamuulka ee kastamada kala baydh iyo abaarso. taasi waxay kor u qaaday adeeg bixinta goobahaasi.
waxaa laga shaqaysiiyey goobaha kastamada ee darar weyne iyo taleex ee gobollada Sanaag iyo Xaysimo. waxaa la qorsheeyey isla markaana la dhagax dhigay dhismaha kastamada Gambare iyo kantaroolka bariga Ceerigaabo, kuwaasi oo la dagaalami doona badeecadaha kontrabanka. fulinta isticmaalka miisaaniyadda ee 2021 waxaa la bixiyey kharash dhan 1,409,715,733 shilin oo ka hooseeya 9.3% ku talagalkii bilihii January ilaa September ee sanadkii 2021 kana badan 13.4% sanadkii 2020 waxaana taa keentay hab maamulka iyo tashiilka lacagta. waxaa la bixiyey dhammaan qoondadii dawladda ee qarashkii doorashooyinka labada gole ee wakiilada iyo deegaanka 2021 oo ahayd lacag 16 ilaa 17 milyan oo dollar. waxay xukuumaddu meel marisay in mushaharooyinka ciidamada iyo shaqaalaha la bixiyo bil walba 25keeda si loo abuurto kalsoonida wax iibiyaha. waxaa kharash bixinta biilasha dawladda loo asteeyey in lagu bixiyo 10 casho gudahood maalinta qaansheegta loo keeno xafiiska dawladda. waxaa diiwaangelin iyo la socod bile ah lagu sameeyey ku dhowaad 200 xisaabood oo ka baxsan miisaaniyadda dawladda ee hay'adaha caalamiga ahi ee siiyaan laamaha dawladda. waxaa la bixiyey 106 bilyan 946 milyan 632,435 shilin iyo weliba 92 bilyan 353 milyan 336,941 shilin oo kala ah kabka iyo cashuurta degmooyinka dawladaha hoose ee goobaha kastamada lagu qabtay. waxaa la bixiyey 68 bilyan 682 milyan 722,903 shilin oo ah deymaha sanadihii hore ka soo wareegay ee ku jira miisaaniyaddii 2021. mashaariicda horumarineed ee la fuliyey waxaa ka mid ah ka qayb qaadashada wadada Laascaanood iyo Kalabaydh oo dhamaatay, ka qayb qaadashada wadada Tabca Ceerigaabo oo dhamaatay, wadada Woodward oo socota, cisbitaalka Ceelaf Weyn ee Ceerigaabo oo socda, xafiiska degmada Sarmaayo ee Sool oo socda, MCH-ka Damalaxagar oo socda, saldhig boolis Cirshiida Sanaag oo socda. mashaariicda dhismayaasha ee wasaaradda horumarinta maaliyadda ee sanadkii 2021 dhismaha xarunta wasaaradda ee Burco, dhismaha hoyga shaqaalaha ee Kalabaydh, dhismaha bakhaarka kaydka kastamka ee Hargeysa, dayactirka xarunta wasaaradda ee gobolka Saaxil ee Berbera, dhamaystirka dhismaha JOC ee Hargeysa, dhamaystirka kororka fooqa xisaabaadka ee Hargeysa, dayactirka xarunta wasaaradda ee Sool ee Laascaanood, dhismaha diirka DRC ee Hargeysa. nidaamka xisaabaadka dawladda sanadkii 2021 waxaa la dhisay gudida diiwaangelinta hantida maguurtada ah ee hay'adaha dawladda. sidoo kale waxaa la magacaabay lagana shaqaysiiyey gudida xisaabaadka qaranka Accounting Standards Board. waxaa kale oo la sameeyey lana dhaqangeliyey hagaha xisaab celinta ee hay'adaha dawladda ee 3 biloodka iyo sanadlaha ahba. waxaa la diyaariyey lana soo saaray buugyaraha hagaha mashaariicda miisaaniyadda ee 2021. sidoo kalena waxaa la sameeyey siyaasadda xakamaynta isticmaalka miisaaniyadda dawladda. waxaa xisaab xidhka dawladda ee 2020 lagu saleeyey nidaam xisaabeedka dawladaha ee heer caalami ah ee loo yaqaano IBSAS Cash Basis. waxaa kaloo dawladaha hoose ee dalka lagu tababaray habka loo diyaariyo xisaab xidhka. hirgelinta nidaamyada casriga ah ee maamulka maaliyadda intii lagu jiray 2021 waxaa lagu dhammaystiray dhammaan wasaaradaha iyo hay'adaha dawladda dhexe adeegsiga habka maamulka maaliyadda SLF MIS-ka. waxaana lagu guuleystay in habkani SLF MIS-ku ka shaqeeyo hay'adaha madaxa bannaan ee dawladda sida wakaaladaha biyaha, baanka dhexe, haamaha shidaalka ee Berbera, madbacadda qaranka iyo dekadda Berbera. waxaa kaloo la gaarsiiyey hanaanka iswada ee SLF MIS-ka dawladaha hoose ee dalka oo ay ka mid yihiin dawladaha hoose ee Gabiley, Berbera, Burco iyo Boorama. waxaa la hirgeliyey cutubyada nidaamka SLF MIS-ka ee kala ah maamulka deymaha qaranka Debt Management Model. waxaa la dhameeyey lana fuliyey habraaca ilaalinta xogta nidaamyada maamulka maaliyadeed, waxaana la isku xidhay dhammaanba wada shaqaynta hababka kala ah hanaanka iswada ee xogta maaraynta maamulka maaliyadda dawladda SLF MIS iyo hanaanka isku dhafan ee maamulka cashuuraha ITAS.
habka cashuurta ajnabiga dalka ka shaqeeya work permit, cashuurta socdaalka immigration, hanaanka isku dhafan ee maamulka cashuuraha itas iyo habka online-ka ee diiwaangelinta daaraha ijaarka GIS, hanaanka itaska iyo nidaamka xogta gaadiidka, hanaanka itaska iyo CMS-ka oo ah hanaanka elektarooniga ama online-ka ee maareynta xogta kastamada kaasi oo la wada gaarsiiyey kastamada iyo goobaha dakhli ururinta ee gobolada dalka. waxaa la hirgeliyey cutubyada itaska ee kala ah qiimeynta cashuurta, xisaab celinta cashuuraha, tirkoobka cashuurta bariga, cutubyada CMS-ka kastamada ee kala ah maamulka khataraha kastamada iyo nidaamka xisaab cashuureedka online-ka. waxaa goobaha dakhliga ee gobolada la wada gaarsiiyey hanaanada kala ah SLFMIS-ka, itaska iyo CMS-ka. sanadka 2021 waxaa la dardargeliyey mashruuca dib u habaynta maaliyadda ee qayb ka ah DRM iyo BFM iyo BROFR si loo gaadho nidaam maaliyadeed oo ku dhisan hufnaan, daahfurnaan, isla xisaabtan iyo maamul wanaag. kobcinta dhaqaalaha waxaa la sameeyey siyaasadda cashuuraha qaranka ee 2021 ilaa 2025 waxaa la sameeyey xog ururin iyo cilmi baadhis ku saabsan ganacsiga gaarka loo leeyahay ee lagu saleeyey siyaasadda dhaqaalaha qaranka. waxaa la sameeyey warbixinta xaaladda dhaqaalaha iyo ganacsiga ee sanadkii 2021. waxaa xog ururin lagu sameeyey macluumaadka hay-adaha maaliyadeed ee gaarka loo leeyahay si loo sameeyo siyaasado maaliyadeed oo lagu kobcinayo. waxaa la soo ururiyey tirkoobka xaddiga caawimooyinka inaga soo gala hay-adaha iyo waddamadayna siiya taageerada dhaqaale. waa hagaag xasan xarbiye raxmo cabdilaahi aad bay u mahadsan yihiin. gabagabadii barnaamijkeena ayaa dhegaystayaal la soo gaadhay iyo hadihii aanu idiin soo gudbin jirnay mid ka mid a sugaanta kala duwan ee radio Hargeysa, heesta liibaan male adduunyadu iyo weliba codkii Saada Cali ayaan idinku dhaafaynaa. tan iyo intaanu barnaamijkan mid lamid ah isugu iman doonana nabadgelyo.
kale la leebihi